En xogaa rooban yarahaya halkan aanu imika joognaa waxa weeye xerada keliya ee geel lagu dhaqo ee Yurub oo dhan ku taala Smith's Camel Farm baa la yiraahdaa waa xeradii geele Smith halkan dad fara badan baa wadamada Yurub oo dhan ka yimaada oo u soo daawasho taga maantadan ku dheeda waxa la noo sheegay in dad fara badan ay imanayaan oo ay u soo daawasho tagayaan caanihii geela ayaa iyagana halkan lagu iibiyaa iyo waxyaabo fara badan oo kale loo sheegay laga sameeyo caanaha geela la faahantooda bal hadda gudahayna si yara raacayna واركيسانو جيلي هالكاس كو حريسان yahay caanihii geela ayaanu ka cabaynaa miyiga wadanka Holland xeradan dad fara badan baa u soo daawasho taga dalxiiskaasna waxa loo yaqaan safari halihii halkan ay ku xareysan yihiin iyo nirgihii yaryaraaba haddii miyigeennii aad maqli jirtay dhulku waa barwaaqo waa barqadhereg xoolo halkan waa fadhi ku dhereg oo badana ma baxaanba cuntada iyo biyahana halkan loogu keenaa maadaama imka yara qabow tahay laakiin waqtiyada qaarkood waa la sii daayaa mar dhowba ninka geelan leh iyo ragga ka shaqeeya ay nooga sheekayn doonaan bal hadda sida loo dhaqo caanaha inta ay ka maalaan maadaama xooluhu barqadhereg ay yihiin ama fadhi ku dhereg baa dhaahdee imika nus litirka caanaha geela waxa la naga siiyay 4 euro wala lacag ilaa $5 marka litirka wuxuu noqonayaa $10 waxaan u maleynayaa aad bay uga qaalisan kuwii Soomaalida ee lagu cabi jiray dhulkii dhadhankuna inkastoo yara garanaysa in caana geliin haddana waad garanaysaa inay ka duwan yihiin de malaha waa kuwani balka kaliya daaqayaan oo dhirtii faraha badnayd ee kala duwaneyd ee xoolaha Soomaalida ay cunayeen meeshan ma jirto caana geelan dhamaysto mar dhow isku soo noqonaynaa haddii baryahan dambe dhulka Soomaalida ay aad ugu soo bateen caanaha geela geela lagu dhaqo meelaha magaalooyinka aan ka fogeyn oo deedna caanahooda loo iib keeno magaalooyinka malaha intii ka dhinay dadka geelashaasi dhaqla sida Fardoola oo kale halkan ay maanta ka baran karayaan dadkan arkaysan imika waxay halkan u yimaadeen inay geela daawadaan waxa looga shaqeynayaa geela noloshiisa taariikhdiisa sidoo uu nool yahay caanihiisa waxyaabaha laga sameeyo iyo macluumaadka geela ku saabsan oo dhan qolada geela li waxa kale ay noo sheegeen dhawaan inay bilaabayaan meel la seexdo oo dadku marka habeenkii ay ku hoyan karayaan xeradan geela waxaa soo dada arkaysaan qof kasta waxa halkan ku soo galay 10 euro oo waa lacag ilaa $12 laba saacadood baana looga sheekeynayaa oo kaliya geela iyo noloshiisa iyo faa'iidooyinka uu leeyahay marka waxa lagu bilaabayaa marka hore nus saace ku saabsan macluumaadka geela iyo waxyaabaha ay jeclaan lahayn inay ka ogaadaan dabadeedna markaas xerada geela la dhex galaya safari baa la yiraahdaa waa safarigii Holland jooga marka hadda waxay ka yiraahdaan baan la eegaynaa marka dambena sida dadka loo daawatiinayo geela ayaa idina nala daawad doontaa imika la bilaabayaa casharadii geela ku saabsanaa deedna dabada loo soo saaray malaha waxa kaliya xeradani ay ka shabahdo xeriyihii geela ee deegaamada Soomaalida waxa weeye urta saalada geela oo aad markaba garan karaysid laakiin wali wax kale oo iska shabahaan geela markuu daraaran yahay geela qaarba meel bay ku xareysan yihiin marka waa kan geela cawskii halkaas marka loogu daadinayaa halkaas buu gamtaas ku haynayaa oo ka noolaanaya geeli baa lumay iyo soo celi iyo geela soo rogiyo waxaas ma jiraan
wala inoo sheegi doonaa geelan halkay ka soo qaadeen laakiin sida arkaysaan uma eka geelii Soomaalida ama geelii Afrikada bari lagu dhaqanayay xerada kala soo eegaynaa casharkii geela ku saabsanaa baa noo bilaabayaa waa sooriyadii weeyaan oo markii tendadan la nagu soo xareeyay ayaa waxoogaa keegal noo dhiibay dadku markaa su'aalay weydiinayaan Cabdishakuur baa dabcan ii sharaxay waxay leeyihiin way macnaynaya Cabdishakuur maxay leeyihiin كل هذا طبعا كشكل إنسان كم بيني قصيدة مركب كوبلاوي إنه هولنديس أو دنيرة أو بتي جامعة بيرها إنه هولنديس شعلان خبرني كولج كبيرها وخير إنه اللي نهضة تذكر الله هذا كان traditional الله ده مركب موجود على الحكاية الفكرية إن جيل يعني مركب الدراسة تكسمه إن جيل الله ولا فكرة وده كان صورة قلتها باللو إن ده جناح سلام سلام marka halkaas ay ka timid idea ninka dhalinyarada ah oo jaamacada ka baxay baa bilaabay uu ku guuleystay dadaan legal wadanka gelo lagu dhaqay sharciyan oo marka hore taalays oo raacsan belo ahaan lama ogoleen water hier wie denkt er nog meer dat die kameel water in zijn brood heeft zitten er zijn toch wel zeker 3 mensen die dat denken ik hoor daarachter melk vet hoor ik ook. Wie denkt er allemaal dat er vet in de bult van de kameel zit? هذا waxay ka sheekeynaysaa waxay leedahay dadkii xujeynaysa waxay leedahay Nee, die bult die zit helemaal vol met vet. geela kuriskiisa is een beetje hetzelfde principe. Waxa ku jira suuq baa ku jira Wanneer wij te veel eten, dan krijgen wij vet in onze buik en onze billen. maxay yidhahdeen markaa dad qaar waxay leeyihiin suuq baa ku jira waxa ku jira saxiib baa ku jira en dan kan die een week van leven. ayada kulli waa si Dus hij kan dadkii ook met een volle bult een bashaalanaysa week zonder eten. Aan het einde van die week is de bult helemaal leeg en slap en moet weer wat te eten gaan zoeken. Nou, zo'n kameel kan ook een heleboel water meenemen de woestijn in. Dat doet hij niet in zijn bult, maar in zijn buik. En dan kan hij wel 100 liter water kwijt. aad marbiya aba waa markuu haysto malaa uu helayo hadi 100 liter oo biyo Dan gaan we eens even verder kijken naar de kameel. waa kan hulub joogaan malaynaya kulli kennen oo la mid Ik heb hier 2 plaatjes van de snuit. En wat zien jullie voor verschil? sanka geela laga sheekeynay hadartan in laba sawir baa halka ku aragta waxay weydiinaysaa dadka difference u dhaxay labada sawir Inderdaad, de ene neus is open en de andere neus is dicht. sanka Die labada sawir kameel, midna die uu kan zijn xiriir neus midna uu furan dichtzetten zonder zijn handen te gebruiken. Want die heeft geen handjes. marka geela Hebben wij leedahay sankiisa misschien uu xiri karaa vandaag ook mensen die hun neus furgan dicht gacnihiisa zetten gacnihiisa zonder de isticmaal handen way te geela gebruiken? gacna male hay way waana furi karaa la furi karaa dabcan En dan weli may kan sheegin maan het malaynaya want als Cabdishakuur er een beetje geela halka lawaai in de keeneen woestijn wordt, ma weli dan lopen. taa uma aysan En guda dat gelin zand en dat hadda stof, aqoon guud bay ka dat heeft hadlaysaa hij geen zin om. Dan gaan we eens even verder kijken naar de ogen van de kameel. Ik heb hier Die weer 2 gele. plaatjes. Deze is Kasje ietsjes kennen ze, lastig laten we te zo. zien. Maar wat hebben jullie hier voor verschil te zien? sawirka eed iyo midka bida waxay weydiinaysaa farqiga u dhaxeeya En dat is labada eigenlijk in één keer goed. Er zit een vlies op. En volgens mij heb ik hem weer gehoord. Het is voor de zon. Het is een ingebouwde zonnebril. wuxuu leeyahay geela sidii ookiyaalaha qoraxda loo qaato kale hay sidaas way kale u shaqeeya Is iemand van jullie ilaahay baa wel ugu eens in de talagalay woestijn waa wax geweest? dabiiciya Ja, zijn we? En kon je daar met blote voeten over het zand lopen? Nee, hè? Alleen rennen. Ja, heel even knieën, zijn enkels en tussen de En voorpoten heeft hij allemaal waynan grote gashaantiya eeltvlekken oo zitten. geel jira ah Dat beeld is donkerbruin en heel waxaan u malaynayaa se u sharaxayso alsof hij geela op heeft gelegen. waxa kaliya uu sharaxi karaa waa geel jiraheenii Meteen in de stal ook wel zien en voelen. En die plek tussen de voorpoten die zit op het borstbeen en die is wel waxay zo leedahay cabdisalaam hartstikke dik eel. cagihiisa En je weet Die kale jullie maqal. toevallig ook hoeveel kamelen wij carrada hebben? kulul desertiga wuu ku dhex lugeyn karaa mana karto waad marka sababta aysan u karin kuleylka cagaha geela maadaama caga jilicsan geela uu hay leeyahay hay ay ka hadlaysaa way waxay leedahay waa wax dabiiciya oo ayaga ilaahay ma yaqaana dadka laakiin anaga waxaynu leeyahay ilaahay baa ugu talagalay Die kant op. marka waxay leedahay afarta En als je adimood bedenkt dat dit een wuxuu ku leeyahay melkveebedrijf is, cagta hoosteeda hoeveel volwassen mannetjes sida gaan hier barkintii dan lopen? cag jilicsan cagtaa jilicsan wuxuu ku diramayaa meesha kuleelkeeda kana celinaysa kuleelkeeda 2 mannetjes in de afarta bedrijf. adimood kuma laha In de stal barkintaas achter mij staat wuxuu ku leeyahay halka lega oo kale Snowbike restaurant. iyo afarta lugood jilbaha meesha marka uu fadhiisanayo xataa naftarkeeda wuu ku leeyahay marka qoraxda ma karta meesha cadceedu ma karayso dhul kulul buu fadhiisan karaa xoolaha isaga ayaga iyo Ondanks ciida dat er is qabowga geen talow stal waar één ma ka sheekaysay weli kun je toch inuu saas kale ugu goed adkaysto herkennen. weli kama Zo kan met de lippen. En ik heb
waxay ka hadlaysaa yani farqiga u dhexeeya geela midkiisa labka iyo midkiisa dhadiga ragga waxay leedahay yani awrta halka kore madaxa kore iyo waxay ku leeyihiin laba meelood oo yaryar oo dhididku aad uga baxo oo urkhaasan هاي waxa kale uu leeyahay laba ilkoodu kor ku Ik denk dat waar jullie nu Weet. merken niet is wat ik nu ga marka laakiin haluhu ma lahayo haluhu ma laha baa halka ay ka dhididaan korana jeegada aan iran intaasan geelag joogayo cabdishakuuro waxay sheegaysaa maan arag En als hij dat doet... En zo zie geeli je dat doobini eruit. awrkee doobiyey ka hadlaysaa ha marka waxay leedahay dee hashu markay aragto awrkii doobinaya aad bay u jeclaanaysaa waa garanaysaa in wax kala doon yihiin geela markuu daraaran yahay laabalin gubtaaye casharadii baa socdo su-aalo kale ma weydiin karana laakiin waxaan jeclaa inaan weydiiyo geelaygii hadda waa geelayga waxaa la odhan jiray daayin iyo halaa hindi iyo maandeeq iyo awrtan cadaawo iyo baa la odhan jiray geelayga talo kuwan waxaan u malaynayaa lucy iyo baa la yidhaha kati iyo kolleyba magacyaa jira ay isu yaqaanaan iyo waxa kaloo cajiiba weli maanu arag intaanu xerayaa dhex maraynay geeliyo ama dee la caraynayo ama loo heesayo marka la maalayo oo kale malaa afdhaj baa loogu heesaa waxaa laga yaabaa dadkeena soomaalidu in sidii awow ka awow laga soo gaadhay uun geela loo manaafacadsado xeradan geelu waxay la yaab ku leedahay waxyaabo fara badan oo maskaxdaada baan ku soo dhacayn ayaa caanihii geela laga sameeyaa weligaa ma maqashay ama ma istiri caanihii geela roodhi laga samaynayaa waatanaan gacanta ku hayo waa arrinta ugu mucjisada badan laakiin qaar kalaa soo socda kan markaa halkan iska dhigo kuwooda ugu sahlani waxa weeye ee dadka meesha soo booqda loogu talagalay waa furayaasha bahalihii lagu xidhanayay oo geeli uu ku sawiran yahay arrinta kale aad iyo aad ka iga yaabisay waxa weeye haddii in badan aad ka cadhootay iyadoo lagu yidhi caanihii way go-een ama way dhammaadeen ama xoolihiiba way guran yihiin oo geeli caano ma laha timeka waa laga badow baxay waa caanihii geel oo kiniina markaa 2 ilaa 3 baad ku dhufanaysaa maalintii deedna intii caanuhu kuu tarayeen ayay iyana kuu tarayaan deedna jabadaad ku wadanaysaa kuwaad sanadka dambe cabi lahayd baad haddaad doonto sii qaadanaysaa waa caanihii geela oo saabuun laga sameeyey saabuuntan ilaa $5 ba xabadii la siiyaa baa laygu yidhi inanta ka shaqaynaysa halkan waxay ii sheegtay in dad xanuunadan maqaarka ka caban jiray oo u yimi oo iibsaday in saabuuntani ay aad iyo aad wax ugu tartay oo ay ku caafimaadeen mucjisooyinkii faraha badnaa geela lagu sheegi jiray ayuunbay iyana ka mid tahay baan malaynayaa halkan sharaabo kalaa yaalla oo iyagana laga sameeyey caanihii geela marka waxyaabahaas oo dhan aynu aragno malaha waxaa la soo gaadhay xilligii soomaaliduna ay wax iska weydiin laayeen in sida geela loo dhaqdo wax laga bedeli karayo geelu sidanu halkan u habaysan yahay saasaa loo daawanayaa dhalinyaro fara badan oo weliba gabdho u badan ayaa ka shaqeeya meeshan geela lagu dhaqo dadka dalxiisayaasha faraha badan lehna ay usoo daawasho tagaan inantana ka mid a what's your name please Yada. Yada Yes. and what do you think of the camels I think it's very special for a country like Holland to have a farm with camels, because normally there are only farms with cows and pigs, but now there are camels. waxay tidhi waxaan weydiiyey sida u aragto geela dabeedna waxay tidhi waddankan Holland oo kale aad iyo aad buu muhiim ugu yahay maadaama dadku ay lo-da iyo doofaarka iyo waxyaabaha saas dhaqan jireen so you don't normally see camels on the streets here No, never. No. waxaan deedna weydiiyey waxaan ku yidhi geela de halkan laguma arko isagoo meelaha jidadka iska maraya sida dee dhulkeennii ka dhacda deedna waxay tidhi taa meeshaba ha ku soo darin thank you very much. You're welcome.
magaalada Amsterdam waxaan kula kulmay Shamso Sheekh Xasan oo iyadu ah agaasimaha guud hay'adda ka shaqeysa daryeelka iyo ilaalinta carruurta marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano SOMCAN. Shamso hore waxay u ahaan jirtay diblomaasiyad ka tirsanayd safaaraddii Soomaaliya ay ku lahayd waddanka Belgium gaar ahaan magaalada Brussels intii burburka Soomaaliya aanu dhicin. Shamso kusoo dhawo telefishinka Universal. waan dhawahay Shamso markaynu u nimaadno waddankan Holland oo imika degan tahay ururka shaqadiisu maxay noqonaysaa markaa? marka tii hore waa taas waa background horeeto laakiin 2000 markay 2004 ka ahayd baan waxaan aragnay waagii horeeto runtii dadku markay soo qaxayeen oo hore hataa Europe situationka hadda ciyaalka la isaga qaato ama lagu faragelinayo waa ay ka yareed markii la fiirsho waqtigan hadda sida ay marayso iyagu ruuxooda Europe 15 sano la soo dhaafay baa shuruuc badan lagu saaciidiyay si loo ilaaliyo daryeelka ama ilaalinta xuquuqda carruurta marka maadaama ay dhibaatooyin badan ka dhexdhaceen institutionska waddankan oo child carruurta ilaaliyo xuquuqdooda iyo dadkii Soomaalida ahaa oo yimaaday oo ilmo yarar oo mararka qaarkood iyagoo waddan ku cusub oo dhowr bilood joogin carruurtii laga dareersaday 7 ciyaal 8 ciyaal families arkaysa iyagoo waliba magaalooyinka degan in ilmihii kaamamkii lagu faragelinayo isfaham waagaasayto lagama yaabo inay waalidiin xun yihiin laakiin dhaqanka aysan fahamsanin maxay tahay hay'adani daba socota aniga sidaasaan marka hadda last 12 years ururka uu isku dayayay in bal hay'adahan iyo dadka Soomaalida ah la isfahamsiiyo isfaham darrada tilmaantay ee hay'adihii ka shaqeynayay daryeelka carruurta iyo waalidiintii Soomaalida ahaa maxaa ugu weyn baad oran lahayd horta waxa ugu yar hadaan ka bilaabo tan ugu dambaysa tan ugu weyn ha noqotee ilmaha yarka markuu dhasho wadamadan waad aragto hay'adaha waagi hore waxa jiray MCH oo kale ilmaha in la miisaami jiray Soomaaliya halkana sidoo kale way hay'adaha jira marka ciyaalka miisaamaya waxaad arkaysaa isfaham waag ugu horeey wuxuu ka bilaabanayaa ilmihii yaraa markii hooyadu istiraado ilmuhu ku kobco ilmo cayilan ha ku noqdo annaguna aad baan waxaan u aragnaa ilmuhu mogtay inuu fiican yahay ilmo aata hooyada Soomaalida badan ma jecla waxay leeyihiin ilmihii balkori hadhow lagu qabsanayo waxa leeyahay ilmahan miisaankiisa intaanu ka saaid noqday maxay tahay waxay u arkaan iyagu marka dayacaad inay tahay ilmaha aan la iska sii la iska aamusiyo ilmihii iska cayilay waa faragelinta ugu yar hooyada Soomaalida marka waxay leedahay ba markii waxay isiyaan inta aan wax ugu iibiyo oo aan siiyay misana wali dacwo ii siiyaan cunuga maxaa loo cayiliyay way ka bilaaban kartaa marmarka qaarkood waxay ku bilaabanaysaa ilmaha wax iskuulka kaleeto haday arkaan ilmo maaragtay aan la socon karin marka qofku cusub yahayna runtii wuxuu u baahan yahay inuu dareemo waddankan iyo sida looga nool yahay saacadaha ilmaha iskoolka la keenayo waxaad arkaysaa waxyaabo badan ay runtii ka bilaabataa ha ugu weynaato mid ka soo qaad tacadiyada anagu aan naqaano kale ugu waaweyn Soomaalida inta badan ay galaan hadii tacadi la yiraahdo sida gudniinka gabdhaha kaleeto waa dambi waddankan waxa laga yaabaa hooyada Soomaalida ah inay marmarka qaarkood ilaa iyo hadda inaysan ku dhicin qodob sidaas laakiin haddana waxyaabaha marka hore focuska loo saaray way ka mid yihiin oo ah oo fiiro gaar loo yeelanayo iyo tacadiyadaas kale oo dhaca aan waalidkii aysan dhaqanka aqoonin oo kale ilmihii iskoolka banaankiisa isaga ciyaaray waalidkii soo daahaan oo kale waxa ugu yarar weeye marmarka qaarkood oo arrimaha aad u badan oo hadda inta badan dadka Soomaalida aysan aad ugu maaragtay isla soo qabsana waxa kamid ah carruuray dadka badan ee qaraabo ah ama qaar baa walaalkiis dhintay ama qaar buu soo qaaday wuxuu kule intaan ciyaalan dhalay kuwaana waxaan u wadaa waa koris ana soo koriyay marka meelahan la keeno waalidiinta ilmahaas wada oo walaalkii ka soo qaada ama walaashi u soo qaada ama wuxuu u saaciiday ilmahaas leh markay meelahan yimaadaan faragelinta ugu horeyso la bilaabay waxa weey maadaama ilmahan waalidkii biologicalki dhalay labadii iska dhalay aysan la soconin dawladda waxa ka saaran mas'uul in uu ku fiiriyo ilmaha oo qof kale oo ehli uu soo kaxeeyay marka soo kaxeeyso halkan keentay waxa lagu leeyahay annaguna waan kula eegaynaa marka waxa la eegayaa in adigi maadaama aad aniga ka soo baxayso waajibkii ka saaraa marka faragelinada ugu yar oo inta badan bilowda taasay ka mid tahay xagga waxbarashada kaleeto ilmaha markii ay ku jiraan oo kaleeto waad arkaysaa inay dadku Soomaalida way jecel yihiin inay dadaal badan sameeyaan laakiin haddana meelo badan baa runtii iyadoo wax yar ku bilaabanaya baa dhici karta in wax weyn ay ku noqdaan dhibaatadaasi sideen la socono Shamso waxa weeye mararkay ugu daran tahay waa marka sidaa tilmaantay waalidka lagaba qaado carruurtiisii oo loo geeyo cid kale oo koraysa ama dawladda ha noqdaan ama qoys kaleba Soomaaliya intee lag bay taasi ku dhacdaa ogaanta
ogaantay horta runtii waxay aad u arintaas u zaa'iday waagi hore marmar incidental waa dhici jireen sidaan kuu sheegay maadaama dadka Soomaalida waagii hore soo galay shuruucdu xataa iyo nidaamku intaan ka bedelnaa dadku dad magaalooyinka yimaaday oo maaragtay nidaam soo maray oo discipline wax kala garanaya ahaayeen laakiin waayadan dambe dad dhibaato badan soo maray qaxooti badan soo maray ciyaalo badan keenay runtii waa dhexdaas 2008 ilaa iyo 2010 dadkii soo galay waxaad moodeysay in dad badan ay dhacday in maaragtay ciyaalo fara badan laga qaaday badnaanta waxaa ka daran baqdinta ay ku nool yihiin kuwan ilmaha laga qaadin oo keenta marmarka qaarkood inay sii dadajisaba in iyagoon loo soo soconinba la farageliyo waxaa marqalayaan heblaaya ilmihii laga qaada waxaa laga yaabaa wadankay waa iska wadan yar holan laakiin haddana qof 200 kilomitir aad baa la isaga warhaya waxay maqlayaan mid baa halkaas joogta ilmaha lagu farageliyay markaasaa hay-adihii waxaa dhici karta inay marka hore damacsan yihiin bal xaaladan la sheegay ama haddii iyagu waxay yidhaahdaan kasoo qaad gabar yar baan hooyo ilmo yar ka xanuunsaday isbitaal bay geysay mar alaal markay isbitaal geysay ilmaha waxa kusoo dhacay intaan la fiirin baa takhtarku wuxuu yidhi ilmahan yar baan ka walwalsanahay gabadha anigu aad dhammaan u tarjumay waxay tiri bal muusagaa dhalay siduu uga walwali karaa marka dadkanuna waxay ka wadaan wax kastoo dhaca waan ka walwalaynaa ilaa waxay rabaan inay moogtahay ogaadaan iyaga ruuxooda waa lagu qabsadaa hay-adahan maxaa usoo sheegi weydeen maxaa uga warhayn weydeen marka isfaham waagaa daraadii iyadoo mushkiladda ay tahayba haddana baqdin badan dadkii Soomaalida soo food saartay waxay maqlayaan xaggaa mid joogto wax laga qaaday xaggaa mid joogto iyaga marka waxay bilaabayaan dadkii inay maxaa la oran jiray Soomaalida bacba la isku xiraaday miya bacdaas oo kale inta isku xiraan inay hay-adihii inta badan ay did ma ka qaadaan oo marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa in la yiraahdo berri waan ku iimaanayna waxaan rabnaa inaan waxaas kala hadalno iyadoo wixii wax weyn ahayn buu qofkii wuxuu isku xirayaa isku kasii gaashaamanay leeyahay ima iimaan kartid maxay iga soo doonaysaa albaabka ka xiro u furnaan la'aanta marka daadan iyaga waxa galaya inay yiraahdaan qofkan waxbuu qarinaya marka dhaqanka kala duwan ayaa horta waxyaabaha ugu badan oo keenay idinka kaalintiin anaga kaalinteena salahan qoyska Soomaaliga ama waalidiinta Soomaaliga ee caruurta lagu farageliyay sida tilmaantay idinka kaalintiin maxay tahay kaalinteedu waxay markaan aragnay horta dhibaatadaas inay jirto ayaan waxaan bilownay mashruuc aan u bixinay barbaarin oo kale la yiraahdo ama ku barbaari caruurta wadamada cusub mashaariicdaas waxaan u bilownay inaan isfahamsiino hay-adahan ay ruuxoodu fahmaan maxaa dhinaca kale yaala qofka Soomaaliga iyo qoyska Soomaaliga isla markaana waxaan u furnay inaan maaragtay qofka Soomaaliga aan la garab istaagno hadii mid loo tarjumi lahaa hadii isagii hay-adaha isaysta maaragtay waxa ay yiraahdaan bridge building in la isfahmo sanadkiiba waxaan sameynay 4 jeer oo la isu imaado hay-adaha iyo dadka Soomaalida la isu keeno si dhibaatadii dadkuna u maqlaan hay-aduhu ruuxooda u maqlaan markii ugu horeysay oo mashruucaas aan bilaabeynay oo mashruuca project magaciisa barbaarin ahaa dadka ka soo qayb galay meesha waxaa ka mid ahayd gabar tiri xataa naagaha nursing oo maar dadka caawiya kalkaaliyaasha caafimaadka ilmaha markay dhashaan hooyooyinka loo soo diro kuwaasaan xataa anagu aan sirteeda ka qarsanaa waa qofkii la rabay inay umulisadii markii qofta umushay inay ilmihii la socoto markaas hay-adihii waxay ku noqdeen ruuxooda inay dareemaan cabsida faraha badan oo meesha jirta iyo anagu noloma soo dirin inaan maaragtay ilmaha idinka qaad marka si ka hortag aan u sameeyno anagoo xagga sharciga wixii loo yara iyo wixii lala qaban karo waa gooni laakiin ka hortag in bal la isfahmo meesha lagu noolyahay shamso inkastoo saan qiyaasayo tirakoobyo sugan aan la haynin marka laga hadlayo qoysaska Soomaalida caruurtooda laga qaaday waxaynu ka hadlaynaa 10 waxaynu ka hadlaynaa boqolaal intee bay gaarsiisantay horta boqolaal ma oran karno mid kalena numberka waxaan lagu heli karin inta badan waxa weeye ilmaha looma gelinayo marka inaan statistically wax baaraysid waa inaad ku baari kartaa ethnicka qofka uu yahay marka lama oran karo ilmahan qofka asalkiisa looma gelinayo ilmahan waa ilmo Soomaali iyo waa ilmo sidana iyo waxa qofku waa ilmaha waa kiis bay macnaa ilan magaalooyinka la kala degan yahay aad bay u kala fog yihiin dadka meelaha ay ka kala yimaadaan marka door adiga ilaa 20 sodomeeyo ama inta ay la socoto kuwa laga qaado waa intaas aan ku qiyaasi karna laakiin kuwa la socdo waxa laga wadaa waalidiin loo sameeyay dadka loo ka mas'uula oo ku kor ilaaliya ilmaha marmarka qaarkood maxkamaddu intaysan arkin khatar fara badan oo waalidkaas uu sameynayo ilmaha hore looga maqaad laakiin waxa loo suubiyaa hay-ado ku kormeeraya waxa la qabanayaa ka soo qaad sanad ama 2 sano
ala leeyahay ilmaha iyo reerka la isku kor ilaaliyo inta badanna marka haddaad la shaqayn weyda hay-adahaas lagu kor ilaalinayo markaasaa incidentiyada badan oo guriga lagu qaadana ay imaadaan marka isku celceli runtii boqolaal sidaa waa ku gaarayaan kuwa lagu kor fiiriyo markaan fiiriyo laakiin markaynu ka hadlayno waxaa lagu tilmaamaa xadgudubka caruurta lagula kaco xadgudubkii waxaa ilmaha in la garaaco oo kale ama la dilo ayaa soo gelaysa marka xadgudubkaasaa badan mise dayaca waxa loo yaqaana badan horta markii halkan la joogo hadda intii badnayd waaridkii waa ay maqlaan maadaama dhibabka ay maqlayaan garaacidii halkan inaysan shaqaynaynin laakiin marmarka qaarkood waxaa aada loogu badan yahay waxa anagu aanan u arag inay tahay dayacaad laakiin marmarka qaarkood wadamadan loo fasiri karo inay dayacaad tahay kasoo qaad ilmaha yarood cayilisay waxay ka mid tahay inaad dayacdo ay ka mid tahay ama aadan wixii caafimaadkiisa aadan la iskaga aamusinayo waa waxa ugu yar kasoo qaad ilmaha kaamanka markay ku jiraan waxaan iska baranay qof Soomaali heblaaya xagga joogta ilmihii kor ka fiirinaysa dad baan arkay lagu farageliyay ilmihii inay hooyadii guri iska fadhido oo mid kale shaah la cabayso ciyaalka banaanka ku ciyaareen age-ka markii la arko ilmaha yaroo keligii banaanka jooga waxaa la leeyahay ilmahan dayacaad baa haysa hooyada Soomaalidana waxay leedahay heblaaya kor ka fiirinaysa xaafadihii dee aan u baranay iyo dariska isla deganaa iyo halkan ma jiraan marka shamso dhinaca kale sida ka dhacda wadamada kale ee reer galbeedkaba ma dhici kartaa isfaham xagga luqadda ah oo aan jirin marka loo eego waalidkii iyo caruurtii in mararka qaarkood dhibaatada uu keeno tan ugu horeysa ugu muhiimsan runtii waa taa mid ka bilaabanaysa waxa ugu muhiimsan furaha albaabka ugu horeeya lagu galaa waa luqadda laba qofka dad aan isfahmaynin hadii ka soo qaad dadka Ingiriis ku hadli kara ama wuxuu jabsan kara isagii qofku isfahmayaan laakiin mushkiladda ugu horeysa meesha ka bilaabato waa taa luqad la'aanti iyo meeshii waalidku ku cusub yahay isagii baqdin badan hayso waqti waalidku markuu isagiiba uusan kabihiisa ku taagnayn oo uu baqdin badan ku jirto isleeyahay maxaa laga fiirshay xagga maxaa laga yiri qaladaad fara badan ayuu u gali karaa inuu marka luqaddu waa runtii waxa aad ka maaragtay baryeeraha ugu muhiimsan oo ugu weyn oo dadka ku kala dhex jira runtii waa luqadda shamso haddaan su'aal kale ku weydiiyo waalidka tusaale ahaan cusub oo kale ee wadanka soo galay ee caruur wata ee dhibaatada looga karo kuba baraarugsan yahay maxaad kula talin lahayd runtii horta waalidka cusub waxaan kula talin lahaa mar walba waxaan oran jirnay Soomaaliya meel hadaad tagtid oo laga ilaayahay waa la iltiraa taasoo haddii dadkan loo fasiro waxayba oran karaanba Soomaalidu waa dad integration hore ka dabaalan kara laakiin waayadan ma dhacdo dadka iyaga kuma dhacdo qofkii wuxuu bilaabayaa markuu soo qaxo inuu yiraahdo waxaan u noolaanayaa sidii Soomaaliya kaleeto Sheekh Xasan aad iyo aad baad u mahadsantahay aad u mahadsantahay adiga Shamso waxa agaasimo guud ay ka tahay ururka ka shaqeeya daryeelka caruurta ee Somkan oo ka jira wadankan Holland mahadsanid Shamso marka laga hadlayo magaalada Amsterdam iyo guud ahaan wadanka Holland waxyaabaha ay adduunyada dhacaanka kaga yihiin
waxaa ka mida biyo-mareennada sanoo kalaa oo magaalada meel walba aad ku arkaysid ama waddanka oo dhanba Melis oo ah saxafiyad iyadoo u dhalatay waddankan laakiin beri dhexda ahayd soo boqotay Somaliland iyo meelo kale oo Afrikada bariya ayaa iiga waramaysa muhiimadda biyo-mareennada sani ay waddanka Holland u leeyihiin. How important are these canals to Amsterdam or to Holland as a whole? It's very important. I think even when we were in high school, they said to us, God created the world, but the Dutch created Holland. So Holland is one of the few countries, if not the only one, that's below sea level. So we are used to live with the water, and we've made it our advantage. And waxay sheegtay in markii iskuulka ay dhiganayeen loo sheegi jiray in Ilaahay uu sameeyay dadka Dutchkuna ay Holland sameeyeen waa waddan joogiisu aad u hooseeyo oo markaa uu caan aad ugu yahay biyo-mareennada sanoo kala. So I heard people live on the canal. Yes. And you used to live in the canal. I used to live here on a boat as well. Yeah, so Dutch people, they really like the water. And Amsterdam itself is very crowded, but we still have the water. So people move to the water to even live underwater there. And Melis waxay tidhi magaalada Amsterdam dadka aad iyo aad ugu badan deedna dadkii waxay isticmaalaan meelahan biyo-mareennada oo dooniyaha dushooda ayaa guryo laga dhigtay oo lagu nool yahay. So how many canals do you have in Amsterdam? That's a difficult question, but in the city center there's basically 3 waters, 3 rings that form the center, and the whole city of Amsterdam is actually sculptured around the way the water flows. waxay sheegtay in magaalada bartankeeda oo kaliya 3 raac ama 3 wareeg oo biyo-mareenni ay ku yaalaan laakiin meel kasta aad marto waad ku arkaysaa dooniyaha sidan oo kale ana waxa inta badan isticmaalo magaalada ku daawada dadka dalxiiska. So lots of tourists also go on the boats to see around. Definitely. I used to live in the houseboat, and in the morning when I put the curtain up, I would see the Chinese people taking pictures from the boat of me in the boat. So there are many tourists coming here to watch this. Melis waxay tii markii doonidaan ku noolaan jiray marka aan daaqadayda daaheeda furaba waxaan arki jiray group dalxiisayaasha oo markaas sawir ka qaadanaya doonidii aan ku noolaa marka aad iyo aad bay dadka dalxiiskiina halkan u yimaadaan wayna hadhow imika magaaladan yara daawanayna.